السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada muuqaalkan aad iyo aad ayuu u xiiso badan yahay sababtoo ah waxaan ka hadli doonaa maantay Facebook in stream medias waa mid aad iyo aad loogu baahi badan yahay haddana ay ku shaqeeyaan Soomaali aad u fara badan iyo caalamkaba aad iyo aad lacag loogu sameeyo wax kasta oo tiknoolajiyada ku saabsan waxay u baahan yihiin aqoon iyo faahfaahin dheeraad ah inuu qofka ka hayo sababtoo ah su'aalo badan oo waxaa jiro aad iyo aad liisoo weydiiyo maadaama aan ka shaqeeyo online-ka siba Facebook-ga qaybta stream mediaska iyo YouTube-ka waxaan rabaa halkan inaan YouTube-kan barnaamijyo iyo macluumaad kala duwan oo xagga nolosha iyo xagga tiknoolajiyada ku saabsan kusoo gudbiyo haddii aad markii koowaad ay ku tahay inaad kusoo birto channelkan subscribe saar notification-kana daaro haddii aad ka mid ahayd bahda channelkan ku xiran waxaan kaa codsanayaa in aad horay u sii gudbiso asxaabtaada aan u gudagalno mawduucayna wuxuu ku saabsan yahay Facebook in stream medias Facebook-ga wuxuu u baahan yahay shuruudo marka lacag laga sameynayo sidaas darteed qofku waa inuu kasoo baxaa shuruudahaas si uu u gaaro yoolka ama ujeedada laba shuruudood ayaa ugu muhiimsan qofka raba inuu lacag ka sameeyo Facebook labada shuruudood waxa waaye qaybta koowaad in uu helo followers 10,000 ah iyo inuu buuxiyo watch time 600,000 oo minute ah labada shuruudood markuu kasoo baxo shuruud kale oo waxaa jirto oo saddexaad ah shuruudda saddexaad waxa waaye dalka uu ku nool yahay qofka iyo qaabka fiidiyowga uu soo gelinayo iyo nooca fiidiyowyada uu isticmaalayo qofka hal abuurka leh waxaa muhiim u ah in uu leeyahay muuqaalo asaga habeystay uu isku keensaday sidaas darteed qofkaas wuu kasoo bixi karaa laakiin qofkaan hal abuurka lahayn ee raba inuu muuqaalo qof kale soo qaato meeshaan waxba kama keeni karo waxyaabo badan oo mamnuuc ah marka waxaan rabaa waa inaa hadda fahantaa mawduuceena hadda waxaan sheegnay Facebook in stream mediaska laba shuruudood ku xiran shuruudda koowaad waa 10,000 oo follower shuruudda labaadna waa 600,000 oo watch time okay taas aan ka gudubno qodobka labaad ee aan u gudbeyno waxa waaye Facebook-ga qaybta ugu muhiimsan dhinacii countries-ka dalal waxaa jiro xayeysiimaha loo ogol yahay dalalkaas listigooda aad ay u badan yihiin laakiin dalalkaas waa dalal ka mid ah Asia Africa qaarkood iyo Latin America iyo wadamo badanba oo caalamka sida Ingiriiska United States United Arab Malaysia Masar wadamadaas oo idil xayeysiintu ay u furan tahay Turkiga qofka joogana lacag uu ka sameyn karaa sidaas darteed qofku haddii wadamadaas ku sugan yahay wax badan oo walwal ah kama qabo inuu lacag ka sameeyo laakiin haddii aad Soomaaliya joogtid maxaa xal ku ah qof joogo wadamadaas inaad listiga dalalkaas joogo oo farandiska ah aad tihiin ama ku kalsoon tahay qofkaas inaad la xiriirtid oo aad ku wareejisid page-ka dana muuqaalka aad ugu dirtid Telegram hab loogu diraa jiro waana insha Allah sheegi doonaa qaabkaasna qofkaas aad xogtii aad maaragtay iskula wadaarsatiin habkaas waa habka ugu fudud ee qofii uu kaga sameyn karo lacag Facebook marka xagga muuqaalka u maana waxaan sheegnay shuruudihii ku gadaasama in lacag laga sameeyo qaybta kale waxa waaye qaybta ugu muhiimsan muuqaalka aad isticmaalaysid waa inuu markasta ahaadaa muuqaal aad adiga leedahay tusaale fiidiyowga hadda aan duubeyno waa muuqaal content original ah sidaan oo kale waa sameyn kartaa waxaa kaloo sameyn kartaa in aad edit gareysid muuqaalo horay dan aad dul saaratid codkaaga muuqaaladaas waa inay ahaanin muuqaalo markasta la isticmaalay oo hore loo isticmaalay dad badan ay isticmaaleen oo copyright owner ay ku xirteen haddii copyright owner ku xirteen
waa xoogaa problem weyn ayaa kaaga imaan kara. xayeysiintiina waa lagaa laabanaya. haddii xayeysiin lagaa laabtona waqti ayay qaadanaysaa in dib ay kugu soo laabato, xoogaa dismaral ayaa kugu dhici kara. muuqaalkan waa horudhac. insha allah caqabadaha iyo sida loo xaliyo iyo waxyaabo kale oo ku saabsan faahfaahinaba sida loo gaaro followerskaas iyo watch time-kaba dhammaantoodba insha allah duruqdaas iyo qaabka loo buuxin lahaa iyo qaabkii loo habeen lahayba halkan kala soco. Cabdinaasir Guusha, mahadsanidin. tankis idinka wax idinku